بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وصلاة الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعبد الله الصالحين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مدنيال دمان شعبي الصوماليين ملك السوء جوجان بوا سلامتهين سلام كبعدي وحن مناسبة أن جعلها إن مناسبة أن أجيدي حنبليو إيه الدعاء سجرتا بدن حسن شيخ محمود وحلي سيد المقرات الله دورتي أو كوجولي سيد دورشدي وريق استحاد إنه نقضوا لونا دورتي إنه نقضوا مدحويني طبنات الجمهورية الصومالية. قوشة أيضا أو قول أسوهيتي ما كريه إمرتا إن تيم كيس أسوهيتي وقول أسوهيتي جمهورية الفدرالك ودن هي شعب الصوماليات وقول أسوهيتي لما يصير اسمها الدولة الجمهورية الصدحات الصومالية وقول أسوهيتي هدي الكوري تحقرنتي أبيلك جوح الشعب الصوماليات يو هرتمين لسينا يو ربيتان كشعب الصوماليات والحمد لله. ساوي حنقول له وحويان هداد أفرستان حسن شيخ يعني مدة عن صوت الشقيني وما نبهنا شعب مانت إن لور شكيو يا واي حسن شيخ لو نبهنا حسي شمد عن ربنا حسوسية وحيتهاي إن مركو أها مدحويني سديدات يو برلمانكي سقالات أي وضع شقينيين اسمها جمهورية فدرالك صوماليا هي هذه الدولة اللي لسايو ودن وحي بدنا بالشروع ده حد laga shaqeynayo waxa ay ansixeen 2014 2015 intuu asaga hogaaminayay dawladda Soomaaliyeed xasiyeeshe ilaa hadda iyo baad 5 sano ka bacdi marka hadda dib u fiiriso wax lagu kordhiyay oo ama ujeed shuruuc ama loo hagaajiyay ama saldhig loo sameeyay dhameystirida ama dhismaha hay'adaha dawladda oo muhiimka ah inta hadda jirta waa intii la sameeyay 2014 2015 hadda fiiriso ama qiyaas aad ku sameyso meeshii uga tagay umay joogtaa wax loo dhimay mooyaane wax oo u soo kordhay ma jiro wax la dhameystirin ma jiraan waxyaalo badan oo marta oo markaas la ansixiyay shuruucdooda la dejiyay oo u baahan kaliya in la dhameystiro oo aan la dhameystirin meeshii asoo uga tagay oo yahay maadeen saad daraadeed u leeyahay waa guul soo hooyatay dhameystirida dhismaha hay'adaha dawladda جمهورية الصومالية أي كعب استاجل هاي. وحكله حسد مدن مدة هذا أي سعودي دورش هذا هذا الوجود إساي لو أبا بولا برلمان كيو دورش هذا مدحوينها الرما وجب يا جري أو هري عنو جري تاسو أي كم تهاي حدان كسر بالله قدون برلمان برلمان كفدرال وأمريكا وجوه رئيس جبر الصومالية أي كم نقطة حبين كنقطة guddoonka baarlamaanka taasi waa arrin soo hoyatay arrinta kale ugubka ah waxay tahay iyadana in madaxweynaha Soomaaliyeed oo laba jeer loo doorta yani laba jeer la doorta inuu asaga xasan soo baxay waa arrin iyadana ugub ah waa jirtay maarta arrimo badan oo kale ugub ah hore aan noo soo marin oo laakiin ka horeysay bishii Maars wixii ka horeeyay Maars wixii ka soo bilowday wixii ilaa hadda laga soo gaaro oo ay bilaabatay howlaha abaabulka baarlamaanka waxay u socotay si maarta oo sidii loogu talagalay ay ku socotay waxaan amaantaas iska leh howsha sida u socotay waa ra'iisul wasaaraha iyo xogeynta guud ee baarlamaanka federaalka wada shaqeyntooda ku jiray howlwadeenada baarlamaanka kuwaas oo u baahan in maarta amaan iyo shahaado sharaf lagu siiyo sida ay u wadeen ilaa intii aan guddoonka la sameeyay si ay u soo shaqeeyeen iyo barnaamijka ay dejiyeen sida u soo hirgalay ilaa doorashada madaxweynaha laga soo bilaabo bisha 12 Maars ilaa maanta May barnaamijka ayaga ay hogaaminayeen waa ku faraxsanahay ani waxaan ku dadaalaa waxaan soo jeedinayaa in marta shaqaalaha ama howlwadeenada baarlamaanka iyo xogeynta guud ee baarlamaanka la siiyo shahaado sharaf lagu amaanayo hawsha sida ay u fuliyeen maadaama ay yihiin laf dhabarka baarlamaanka wadadooda marka ilaa inta guddoonka la sameyn hawsha ay u soo wadeen waa amaan gaar ah aan ay u jeedinayo haddii aan la yiraahdo waxaan mar kale aan marta hambalyo iyo duco u jeedinaynaa madaxweyne xasan ilaahay garabkiisa ha galo annakana waxaan diyaar u nahay shacbiga dhammaan waxa weeye hal qofna wax ma bedeli karo hal qof kaligiis wax ma bedelayo hoggaan fiican iyo tilmaamo samayn karaa laakiin waxaan bedeli karo wuxuu u baahan yahay dhammaan muwaadin kasta Soomaaliyeed inaan ka wada shaqeyno sidii جمهورية
maarata arrimaheeda aan dhidibada loo aasi lahaa sida maarata dowladaha goboleedyada ay maarata ay u dhismi lahaayeen sida maarata haddii aan ku royahay in siyaasaddan oo aarsiga meesha laga bixiyo oo dood tooso maxaa inoo dan ah maxaa ummadda u roon maxaa danta iyo diinta iyo dalka u roon in loo adeego inaan isu aragno inaan adeegayaal nahay oona isu arkin inaan nahay kuwa loo adeegayo aan nahay marka dhammaan waxaa allah waajib nagu ah mar haddii oo xildhibaanadii ay hadleen magaca shacbiga ay ku soo doorteen madaxweynihii tobnaad annagoo dhan waajib waxay nagu tahay inaan la wada shaqayno oo u gunto xiranno dalkaani si u badbaadin lahaa maxamed xasan sheekhna waxaan u malaynayaa inuu yahay maayna u malaya waxaan hubaa inuu yahay madaxweyne nabadoon ah oo run ah madaxweyne dhisaaya dhismaha u jeesanaya madaxweyne aan wax duminayna wax dhisaaya inuu yahay dowlad goboleedyada oo dhismi doona haddii aan la yidhaahdo federaaleynta dastuurka bixiisa doorashooyinka arrimahaas oo dhan oo xasaasiga ah iyo dhaqaalaha iyo amniga kulligooda maarata bixiisa mana aha qof oo hadda la tijaabinaya waa qof soo shaqeeya yaqaana hawsha meel ay joogto ka qabanaya hore ka dareerinaya meeshii ka socotay muddada waa gaaban tahay waa 4 sano laakiin habeen iyo maalin in la shaqeeyo hore loo socday loo baahan yahay dhammaan shacbiga waxaa laga doonayaa sabir inay yeeshaan dulqaad ay yeeshaan oo wada shaqayn adag la siiyo haddaba ilaa labada maalmood marta inaan la dadejin sidoo kale maarta beesha caalamkana waxaan kula dardaarmaynaa in maarta ayna maadaama hadda un la doortay inay ku degdegin markiiba ay soo maarta kusoo buuqaan ama kusoo weeraraan in laga joojiyo ilaa maarta asaga tiimkiisa ka samaysanayo oo barnaamijkiisa dhisanayo in maarta laga warsugo waa lagama maarmaan aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale hambalyo aan u duceyno jamhuuriyadda saddexaad inay noo dhisanto aan u duceyno hogaaminteena inaan hogaamin toosano alla ka cabsi laha inay noo noqoto aan u duceysano in maarata qalbigeena iyo qulubteena iyo qoolkeena iyo afcaasheena inay maarata is yeeshaan alla ka baryo insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi